السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سودوا صاحبيال مربوط دفاع دونida ka joogtaan magacaygu waa cabdi nuux xuseen halkan iga daawanaysaan haddii ay youtube tahayna waa Nunu Academy haddii ay facebook page tahayna waa Nunu Automation Agency waxaan rabaa inaynu isla review gareyno ama aynu isla baarno ama aynu isla qaada dhigno system cusub oo shirkadda Nunu Automation Agency ay gacmaha ka qaaday systemkan waxaa loogu talagalay iibka dhulka ama kala iibsiga dhulka ama ha ahaato in dhulka uu yahay dhul lagu muransan yahay ama ha ahaato dhulka inuu yahay dhul ganacsi ama ha ahaato inuu yahay dhul beereed ama inuu yahay dhul la degayo nooc walba uu ahaado ayaan ugu talagalay sidoo kale waxaa loo sameeyay magaalada Dowlado systemka magaciisana waa Dowlado Land Management System marka sayna wada arkeyno systemka marka wajahadiisa hore qaabkan ayuu noqonayaa xagan waxaa ku yaala adminkii oo ah meesha guud ee systemka laga xukumayay halkan waxaa ku yaala land officerkii oo ah qofka soo diiwaan gelinaya dhulka halkan waxaa ku yaala surveyor qofka dhulka cabirka ka soo qaadayay oo isagana diiwaan gelin leh halkan waxaa ku yaala finance officer oo ah qaybta lacagta qofka qabanay systemka markuu saayay marka waxdii adiga rabtid isleedahay waxdana galaysa iyadana waa la dooranayaa oo waxdii aad dooratid saa u jeedid hadda admin baa saaran haddii aan tan galayana land officer waaye haddii aan tan galayana waa surveyor haddii aan tan galayana marka waa xal yiraahdaa waa finance officer tusaale waxaan ku hormarayaa marka land officer si aynu dhul cusub u soo diiwaan gelino halkan waxaan gelin doonaa marka maxaa la yiraahdaa officerada passwordkiisa iyo username-kiisa aan gelin doonaa kadibna waxaan leeyahay marka sign in ama gudaha u gal systemkaaga markaan sign in sameeyo systemka noocan ayuu soo baxaya dashboardka qofka dhulka soo diiwaan gelinayo halkan saa u jeedid waa dashboardka guud wuxuu ku tusayaa systemkan inta hadda tijaabada ku socotay inta dhul ee la diiwaan geliyay ayuu ku tusayaa oo 10 dhul ayaa la diiwaan geliyay 13 qof oo owner ayaa la diiwaan geliyay wax bendina male dhul la isku haystana lama diiwaan gelin marka waxaan rabaa halkan waxaa ka aragtaa dashboard waa wajahada guud ee hadda uu ka tusay activity-ga meeshan ka dhex socoto halkan saa u jeedid waa parcel waxaa la dhahaa waa marka dhul cusub aad soo gedinayso oo xujid u samaysanaysa la galaa xagan waa mar dhul la kala bedelayo tusaale laba qof dhul markay qof uu rabo inuu dhul qof kale u bedelo ayaa la gelayaa oo transfer baa la dhahaa halkan waxaa la gelayaa dispute dhulka marka la isku dagaalsan yahay ayaa la gelayaa halkana waa mapka marka waxay ku xiran tahay dhulka inkastoo sawir ahaan loo soo gelin doono haddana cabirka dhulkii waxaas haddii la rabo laga fiirin karaa haddii aan ku hormaro qaybtan parcelka click siiyo qaabkan ayuu parcelka u soo baxayaa marka okay parcelka markuu saan u soo baxo hadda halkan waxaa ka aragtaa dhulkan waa kii aan hore u soo diiwaan geliyay iska daa laakiin si guud waxaad aragtaa meeshan ay ku qoran tahay register land and owner waxaad diiwaan gelisaa dhulka iyo qofka iska lahaa haddaan click siiyo halkan wuxuu ku weydiinayaa dhulka size-kiisa tusaale dhulkaaga inuu yahay 6000 ama 600 ba iska dheh land size yani cabirka dhulka uu ku fadhiyo waa kulli parameter iyo square meter ama hectare labadaas ayaa hadda loo diiwaan gelinayaa laakiin dhulka caadiga aan ognahay square meter baa la diiwaan geliyaa kadibna waxaad dooranaysaa marka land type nooca dhulka uu yahay marka wuxuu ku weydiinayaa dhulka ma residential ba oo ma dhul la degan yahay ma commercial ba mid ganacsi loogu talagalay ba ma dhul beereed ba ama ma industrial ba oo ah ma dhul warshadeed ba tusaale aan dhaho dhulkan waa dhul la degan yahay aan dhaho residential aan doorto kadibna wuxuu ku weydiinayaa dhulka meeshuu ku yaalo waxaan leeyahay dhulku wuxuu ku yaalaa Somali region kadibna wuxuu ku yaalaa gobolka Liban kadibna wuxuu ku yaalaa Dowlado kadibna qabaraha uu ku yaalo waa 0 and dhulka GPS GPS ka soo qaatay latitude-ka dhulka imisuu ka yahay tusaale aan dhaho 9000 kulli information-ka waa information qofka engineer-ka uu soo qaaday dhulka diiwaan gelin doono kadibna aan dhaho GPS longitude-ka misal soo qaaday aan 3000 dhaho marka waa dhererka iyo balaca dhulka way ka dhigantahay si kala hadaan u fahmo hadaan aan u sharaxo kadibna saa u jeedid marka hoostaas ayaan u wadayaa hoosta markaan u wadayo waxaan buuxinayaa marka dhulkan qofka iska leh owner information dhulkan waxa iska leh tusaale Cabdi Nuux Xuseen ayaa iska leh Cabdi Nuux Xuseen ayaa dhulkan iska leh marka national ID-ga aan gelinayaa national ID-ga waxaan ugu talagalnay haddii hal qof uu dhul iibsado tusaale qofkan hadduu dhul iibsado oo national ID-giisa loogu diiwaan geliyo national ID kale maxaa la yiraahdaa ma qaadan karo national ID kale ma qaadan karo tusaale hadda halkan waxaa ka aragtaa
national ID gan waa mid aan hore ugu diiwaangeliyay waa lacala oo national ID ga noocan uma eka laakiin markaas qofka inta laga qaado ayaa la buuxin doonaa laakiin maadaama qofkan hore national ID giisa aan u diiwaangeliyay wuxuu leeyahay national ID already registered national ID gan dhul baa lagu diiwaangeliyay oo ma noqon karo marka haddaan tusaale mid cusub oo very simple oo iska geliyana wuxuu dhihi doonaa available wuu isku yaala saa ujeedid national ID gan weli lama qaadan bay ka dhigantay marka halkaas waxaa lagaga maarmayaa in laba qof ay dhul isku qabsato oo laba qof ay dhulkaan ay wada sheegtaan because national ID ga qofka iska leh ayaa dhulkaas lagu diiwaangelinayaa marka halkaana waa numberka marka tusaale aan wax un geliyo keyga caadiga ah aan geliyo okay markaasaa dhaho marka waxaan leeyahay marka ownerka maxaa yaa iska leh dhulkan gmailkiisa muhiim ah meelaha asterisk saaran tahay ama meelaha calaamada asterisk saaran tahay ayaa muhiim ah laakiin meelahan kale muhiim maahan saa ujeed marka gmailka muhiim ah laakiin waan gelinayaa select uu leeyahay qofka ma wiil baa mise waa gabar waa wiil baan dhaho maalinka uu dhashay geli buu leeyahay okay markaasaa dhaho haddii aan hoos usoo wado marka wuxuu leeyahay adresska qofkan ownerka adresskiisa waa halkee buu leeyahay waxaan dhahayaa marka qofkan wuxuu degan yahay tusaale aagga masjidka ama aagga xaafadaha dheh yacni adresska qofkan iskale geliyu ku dhahaya waxaa kaloo dhihi kartaa halkan oo lagu qeexi karaa qofkan wuxuu degan yahay doolo-ado ayuu degan yahay xaafadda koowaad tusaale haddaan dhaho xaafadda koowaad ayuu degan yahay kadibna wuxuu kasii degan yahay aagga masjidka yacni dhulka meeshuu kusii yeelo ownerkiisa qofka iskale haddaan hoos usoo wado marka waxaa arkaysaa halkan wuxuu ku leeyahay marka halkan description notes waa qeexi kartaa weli si yacni caddeynta usii badsato waxaa dhihi kartaa dhulkan waa saan waa dhul noocaasa waa saas dhihi kartaa dhulku waa dhul bannaan oo xaafadaha kore ku yaala tusaale xaafadaha kore ku yaala saa markaan dhaho marka wuxuu dhahayaa sawirka soo geli dhulkii sawir baa laga soo qaaday sawirkiisi marka ayaa halkan la gelinaya ani hadda maadaama aan sawir haysanin waxaan gelinayaa sawirkeyga ah mid ma iska gelin doonaa sawirkan ba geli laakiin adiga hal dhow halkan waxaa gelin doontaa sawirka dhulka ayaad gelin doontaa qofka isticmaala waxaan dhahayaa marka qofkan informationkiisa oo dhan waa la diiwaangeliyay hadda wax ka dhiman male dhulkiisi waa la diiwaangeliyay dhererkii cabirkii informationkiisa meeshuu deganaa waxa uu yahay dhulka nooc uu yahay dhulka sawirkiisa kadib waxaan leeyahay marka submit registration ii diiwaangeli okay markaan ii diiwaangeli laho marka automatically systemkan wuxuu diiwaangelinayaa maxaa la yidhahdaa dhulka inuu iska leeyahay cabdi nuno halkan muusan keenin sababta waxaa waaye wuxuu u baahan yahay adminka ama qofka dhulkaas mas-uulka ka ah ee guud ee dhulka diiwaangeliya ayuu kaga baahan yahay inuu siiyo approval qofkii hadda injineerkaa soo diiwaangeliyey injineerka maadaama uu dhulka soo buuxiyo qofka magaciisa kale waxaa la imaanayaa qaybta adminka waxaa la fiirin doonaa marka qofkanayta inuu yacni maxaa la yidhahdaa dhulkan lasoo diiwaangeliyey ma yeelnaa mise waa diidna approval ayaa loo sameyn doonaa haddii dhulkan dhul sax yahay qofka dhulka gadgada ama xafiiseedka dhulka ama maayarka magaalada wuxuu sameynaya dhulkan inuu approve gareeyo haddii uu yahay dhul qalad ah oo si qalad soo diiwaangelin uu reject gareynaya marka adminka saan usoo galo waxa adminka wuxuu leeyahay ujeeda dashboard ayuu leeyahay oo hadda dhulkii 11 ayuu noqon marka 11 buu ahaa laakiin dhulkan weli lama approve gareyn si loo approve gareeyana waa inta si doona kadib waxaad arkaysaa marka parcel mapkii reportkii userkii marka waxaan gelayaa meeshan ku qoranta approval si aan u jeegreeyo dhulkii la ii soo diray in approvekiisa aan u qaato halkan ugu jeedid dhulka hadda lii soo diiwaangeliyay waa kan halkan uu soo galay qaybta waxaana soo diiwaangeliyay maxaa la yiraahdaa qofka engineerka ayaa soo diiwaangeliyay national ID ayuu ku soo diiwaangeliyay Cabdi Nuno Xuseen waay qofkii marka dhulka mas'uulka ka ahaa ama madax xafiiseedka dhulka ahaado ama agaasinka dhulka ahaado wuxuu ku dhufanayaa meeshan ku qoran tahay review dhulkan inuu review gareeyo yani xogta qofkan inuu arko kadib wuxuu fiirinayaa xogta qofkan sax tahay land type-ka waa residential size-kiisana waa 600 square kilometer Somali region buu ku yaalaa magaalada Doolo-ado qabalaha Zero and wili qofkan dakhli muunan dhiibin GPS coordinator-kiisana macnaha waa intaas 6,000 oo dherer ay 3,000 oo xagaasa kadibna waxaan dhahayaa marka hoos dhulku waa dhul banaan oo xaafadaha kore ku yaala kadibna informationka dhulka waxaa la rabaa qofka la soo geliyay Cabdi Nuno Xuseen gender male owner marka wuxuu siinayaa owner ID iyo wuxuu siinayaa parcel ID labada uu bixinaya parcel ID gana hadhow lagu raadin karaa qofkan haduu dhaho laba qof hadii dhul isku qabsato waxa lagu raadin karaa parcel ID iyo owner ID sa ujeedin meeshan wali waa pending approval lama qofkan wali dhulka inuu iska leeyahay in kale looma cadeynin kadib waxaan ku dhufanayaa marka meesha ku qoranta hoos baan u baxayaa sawirka dhulka la soo geliyay land photo way sa ujeed laakiin waa sawirkayga kadib
haddii qofkan uu informationka ku qaco inuu sax yahay saa ujeedid action required review all detail above dhammaan informationka kor jira iska approve garay kadibna approve permanently register this land links the owner and the official system marka qofkan haddii aan approve ku dhufto official systemka ayuu galayaa dhulkiisa wuu diiwaangelisiyaa laakiin qofkan haddii aan reject ku dhufto meesha wuu ka baxaya marka qofkan maadaama engineer soo diiwaangeliyey qofkii adminka ahaa ama madax xafiiseedka ahaa ee dhulka ama maayarka ayaa dhulka fiiriye review gareeyey kadibna waxaan ku dhufanayaa marka approve registration dhulkii waa la diiwaangeliyey oo halkaas ayuu galay saa ujeedid marka bendingkii uu ka baxay wuxuu leeyahay no bend registration marka hore halkan dhul ayaa ku jiray laakiin hadda maadaama approve dhahay wax dhul ah kuma jiraan kadib waxaan galayaa marka parcelkii qofkii aan soo diiwaangeliyey oo aan yacni xogtiisa aan soo buuxiyey informationkiisa saa ujeedid waa kan qaybta kore ayuu iisoo maray wuxuu ahaa cabdi nuno xuseen ayuu ahaa qofkaa marka laba weyb oo ku raadin karaa tusaale hadda haddaan parcel ID-giisa aan copy gareeyo waa ku raadin karaa oo hoos ayaan systemka usoo jiidayaa systemka hoos baan imaanaya lacala laba qof aa dhul isku qabsatay ama laba qof waxaa la yidhahdaa dhul isku qabto waxaan tegayaa marka dashboardka maadaama aan copy gareystay parcel ID-gi haddaan systemka marka hoos uga soo socdo halkan saa ujeedid waxaa ku qoran qofka laba mid baa ku raadin kartaa midna owner ID-ga ku raadin kartaa sidoo kale waxaa ku raadin kartaa national ID-gi waxaa ku raadin kartaa parcel ID-gi haddii aan marka tusaale view parcel meesha ku qoranta aan ku dhufto oo aan geliyo parcel ID-gi intaan baan kare parcel ID-ga haddaan geliyo saa ujeedid waxaa iisoo baxay cabdi nuno xuseen ayaa iisoo baxay saa halkaa ka arkaysa marka waa qofkan maadaama parcel ID-ga geli marka inta kale ka tirtirayna in ID-ga keliya kusoo reebayna cabdi nuno xuseen ayaa iisoo baxay haddaan sidan halkan marka saa ujeedid qaybtan taabka ah waxaa ku qoran weli in afiyo arki karto qofkan xogtiisa marka la raadiyo tusaale laba qof baa isku qabsatay qaabkaas ayaa u raadinaysaa bay ka dhigan tahay marka saa ujeedid hoos baa loo fiirinaya cidda dhulkan iskale automatically mar haddii systemka la geliyo xogtii oo dhammaystiran iyo dhulkeeda waa la helayaa bay ka dhigan tahay marka okay intaa marka laga soo baxo xaggan waa mapkii oo haddii loo baahdo in dhulkii map laga soo qaado ayaa loo gelayaa okay kasoo laabo halkan marka waa reportkii oo haddii reportka loo baahdo inta diiwaangelisan inta active-ka ah ama dhul dispute area ayaa jira wixii information report ah halkaas ayaa ka helaysaa halkan waxaa ka helaysaa marka useradii marka qaabkaas ayuu systemkeena si guud u shaqeynaya marka qofkan tusaale lacag buu soo bixinaya dhulka marka la kala iibsado lacag baa lasoo bixiya saa ujeedid qaybtan financigan galay financiga markaan galo bal waxaan arkaynaa qaybta financigana sida ay u shaqeyso markaan click siiyo marka qofkii lacagtii dhulkii ay soo kala iibsadeen ayay systemkana loo gelinayaa marka saa ujeeda marka xaggan waa dashboardkii waa paymentkii waa report qayb kasta dashboard iyo hawsha ay qabato ayay leedahay waxaa loogu talagalay qof kasta systemkan daatada ku jirto inuu arko maxaa yeelay qofka lacagta qabanaya naftirkeeda inta dhuloo diiwaangelisan dadka iskale inuu arko waa muhiim oo because hadduusan arkaynin inkastoo waxba ka bedeli karin oo asaga uu waxba diiwaangelin karin oo dhul uu diiwaangelin karin laakiin informationka guud ee systemka ku jiro wuu arkayaa maxaa yeelay wuxuu ka tixraaci doonaa inay xog qaldan lasoo geliyay systemka in kale okay haddaan hadda payment ku dhufto qof baa lacag bixinaya marka lacag maxaa la yidhahdaa isheeg qof markuu rabo in lacag loo diiwaangeliyo ilaan qofkan dhul buu iibsaday marka waxaan ku dhufanayaa marka lacagta maadaama la rabo in la diiwaangeliyo record payment ayaan ku dhufanayaa waxaa la diiwaangelinayaa marka parcel ID-giisii waxaa loo baahanayaa saa ujeedid maxaa la yidhahdaa owner ID-ga marka waa inaa isagana parcel ID-ga maadaama haysto noodkan furanaya noodka markaan furto parcel ID-gii baan copy gareysanayaa systemkii baan ku laabanaya waxaan u baahanahay owner ID-gii adminka gal adminka markaan galo systemkan yacni automatic laysma gaadi karo oo wax walba uu leeyahay wuu dhammaystiran yahay marka waxaan galayaa saa ujeedid owner ID-gii baan galayaa okay parcel dheh okay qofkii marka xogtiisa markaan raadiyo owner ID-gani waa helaya tusaale cabdi nuno xuseen buu ahaa haddaan aan halkan click siiyo parcel ID-giisa copy gareeyo okay saa dheh marka waxaa soo copy gareynayaa owner ID-ga marka intaan ka helayaa hoos baan ka helayaa marka maadaama ownerka oo hoos jiro saa ujeedid owner ID-ga waa kan kadib waxaan dhahayaa marka xaggan asagana soo copy garey oo halkan ku qoran maxaa yeelay waxaan u rabaa inaan isticmaalo marka uu qofkan lacagta bixinayo labadaasba waa liiga baahan yahay oo qofkan haddii uusan owner ID iyo parcel ID-ga uusan lahayn yacni qofka iskale lahaanshaha iyo dhulka ID-giisa labadaba waa muhiim okay halkan gal finance dheh markaan finance ku dhufto marka labada xogba ee liiga baahnaa waan hayaa
waxaan ku dhufanayaa marka payment markaan ku dhufto waxaan ku dhufanayaa record payment kadib waxaan ku hormarayaa parcel ID gi soo copy gareey baan leeyahay okay parcel ID gi waan soo copy gareynayaa waxaan dhahayaa marka xagan tag okay parcel ID ga geli okay intaan ka reeb xagan imow owner ID ga geli marka isagana okay haddaad xaggana waa ka reebi kartaa marka saanba ku daa marka canshuurta sanadku bixinaya waa sanadkee waa 2026 canshuurta lagu leeyahay waa imsa tusaale qofkan waxa lagu leeyahay 600 kadibna payment lacagta ma cash baa loo qabtay ma bangi ba ma telebir ba ma check ba marka waxa leeyahay tusaale lacagta bangi buu ku soo bixiyay bangiga marka reference numberkiisa ayaan halkan gelinayaa reference numberka kan oo qofka receipt-ka markuu lacagta bangiga ku soo shubo receipt-ka uu la imaanayo waaye kadib waxaan leeyahay marka record maxaa la yiraahdaa generate xagga markaan geliyo automatically qofkan lacagtu bixiyay waa 600 hoos baa la soo dhigay saa u jeedid waa kana xaggaas la soo dhigay xaggaas ayaa la soo dhigay waxa kale oo la sameyn karaa waxa la isku qabsaday qofkan inuu lacag bixiyo in kale ila systemku dad badan baa lagu diiwaan gelinayaa waxaan ku dhufan karaa marka search payment meesha ay ku qoran tahay ee ah in la raadiyo maxaa la yiraahdaa qofkan lacagtu bixiyay waxaan gelinayaa marka parcel ID ga ba halkaas la iga baahan yahay parcel ID ga baan gelinayaa qofka inuu lacag bixiyay in kale automatically systemkayga uu sheegay hadii aan ku dhufto search payment saa u jeedid waxaan geliyay parcel ID gi kadib waxaan ku dhufanayaa marka search payment wuxuu leeyahay no payment found because kan baaba qaldan parcel ID ga ayaan si qaldan u geliyay okay saa u jeedid markaan parcel ID ga si fiican u geliyay xagan ayuu ii soo dhigay wuxuu leeyahay Cabdi Nuno Xuseen dhulku iibsaday amount laga qaaday waa 600 sanadkan waa 2026 waxaan uu ku bixiyay waa bangi statuskan waa paid oo lacagtan waa la qabto waxaan la qabtay 5 March marka automatically systemkan waa system complete ah oo laga soo bilo ilaa dhulka laga diiwaan gelinayo ilaa laga approve gareynayo ilaa dhulka la isku haystay waxa soo dhan tusaale hadda waxa qaybtan waa qaybta lacagta dhulka waxa kale oo jiri kara inuu yahay aan diiwaan gelinayna qaybta land officer-ka markaan tago waxaan diiwaan gelinayaa dispute area dhul la isku haysto ayaan iyadana diiwaan gelinaynaa halkan saa u jeed dispute baa ku qoran dispute-ka marka inta badan waa dhulka la isku haysto file dispute baan ku dhufanayaa waxaan rabaa inaan geliyo dhulka la isku haysto tusaale dhulka hadda aan diiwaan gelinayay baan ka dhigayaa dispute waxaan leeyahay marka xagga ka bax select list sababta la isku haysto ma boundary ma xaduud ba la isku haystaa oo yani laba qof oo dhul diris isku haystaba ma ownership claim ma dhulka yani lahashiisa la isku haystaa ma inheritance dispute ma dhaxal ahaan ba la isku haystaa ma fraud allocation maxaa la yiraahdaa ma yani qaab musuq maasuqa la isku haystaa mise dhibaato kale oo dhacday la isku haystaa marka dhibaatooyinku waa badan yihiin hadaa rabtid adar marka dooratid kadibna case-ka ayaad intaan ku sharxaysaa oo case-ka ayaad gelinaysaa marka tusaale dhulkan xad baa la isku haystaa owner ID isagana waxa la respondent owner ID qofka yani dadka isku haysta ID-gooda in la geliyo ayaa halkan ayadana qasab ah tusaale xagga kan baan gelinayaa isagana kan markaan geliyo marka aan saan dhaho kadibna aan dhaho waa dhul la isku haysto markaan dhaho kadib waxaan dhahayaa marka submit the case markaan dhaho already waxaan diiwaan gelinay hal dhul oo la isku haysto ayaan diiwaan gelinay ayay ka dhigan tahay marka haddaan log out dhaho on admin-kii tago on admin-kii imaado dhul la isku haysto ayaa jira isagana dhul la isku haysto inuu jiro in kale ayaan arkayaa marka oo qaybta admin-ka ayaan ka arkayaa marka si guud systemkan wuxuu ka shaqeynayaa maxaa yeelay dhulkan la isku haystay iyo waxyaabaha uu yahay iyo qaybta soo soo galay iyo waxyaabahaas saa u jeedid hadda halkan waxaa ka aragtaa one dispute area hal dhul ayaa la isku haystaa ayuu leeyahay waxa meeshan ku qoran require attention fadlan qaybtaaneed wuxuu ku leeyahay maxaa la yiraahdaa waxa siisa attention si ayuu ku leeyahay marka systemkeeni si guud waa system caalami ah yani xogtiisa iyo wax walbana sidaas ayaa loo kala soconayaa wali waxa jira systemka qayb report qayb passwordada la kala bedelo ayaa jiro oo admin-ka hadda su'aal hadduu rabo inuu change password sameeyo halkan ayuu ka bedelayaa hadda qayb walbo la galana passwordkeeda way bedelan kartaa marka systemkeena intaas ayuu ku saabsan yahay warjeenaya ina dhamaantiin systemka review u sameeyeen hadii ay jiraan waxyaabo lagu darayana commentiga iyo qaybaha kale maxaa la yiraahdaa way ugu soo wadaagi kartaan. Assalaamu calaykum.